السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحايدا لي أصحاب رمضان كريم كسو دواد مصطفى جوي اوفيشال جانل. أصحابته هوا آدا ديك مهل إلا سو ديرجلنتينا waxay sababtay inaan muuqaal degdeg maanta soo duubo. muuqaalkaas oo ku saabsan maadaama dalka doorasho waxaas uu jiro macnaha muuqaal siyaasadeed ayaa rabaa inaan maxay ahayd ka hadlo insha Allah haduu la yiraahdo marka qodobka ka hadli doonaa marka wali laakiin codsigayga ah uu taagan yahay asxaabta please subscribe comment and like waa dhiirigeliyahayga taas waxa waa idinka idin deeyay marka qodobka aan rabo maanta inaan maxay ka hadlo wuxuu yahay cidda diidan dalku in uu doorasho ka dhacdo waa kuma ama waati qodobkaas rabnaa inaan maxay isla fanaqeyno oo maxay sidii ra'yigayga uu sheegayo ka hadlo marka asxaabta waxaan rabaa maxay ahaydey mid kale inaan idin wadaago inta qodobkaas u gudagelin horto shacabka Soomaaliyeed waxa waaye waa wareereen marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago wax yar wax oo maxay ahaydey muhiim ah oo ku saabsan dhanka sharciyada horto ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaadaan horto dalku wuxuu leeyahay saddex awoodood uu leeyahay awoodda koowaad waa madaxweynaha awoodda labaad waa ra'iisul wasaaraha awoodda saddexaadna waa golaha baarlamaanka ee shacabka aqalka sare iyo aqalka hoose golaha baarlamaanka xagga iska dhig hadda awoodaha is haysto kuma jiro hadda waxa is haysto waa labada awoodood marka waxaan rabaa inaa idinla wadaago dalku wuxuu leeyahay xerogeel ma aha dalku wuxuu leeyahay sharciyad wuxuu leeyahay sharci dastuur ku meel gaar ayuu leeyahay dastuurkaas madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu wuxuu siinayaa awoodo gaar ah ayuu siinayaa marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago madaxweynaha awoodaha uu leeyahay ra'iisul wasaaraha awoodaha uu leeyahay intaas rabaa inaan idinla wadaago kadibna marka inta aan dhameeyno kadib waxaa halkaa kasoo bixi doono cidda awoodahaas baalmartay cidda sharciyada jibisay taasna idinka idin deynaa insha Allah haduu la yiraahdo aniga gunaanada ayaa gaari doona haduu Ilaahay raali ka noqdo marka hadda u guda galo ku hormaro madaxweynaha awoodaha uu leeyahay madaxweynaha waxa ka hadlayo qodobka shagaashanaad faqradiisa maxay leedahay waxay leedahay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqi karaa xaalad degdeg ah dalkana dagaal wuu geli karaa sida sharciga waafaqsan macnaha sida sharciga waafaqsan marka lagu leeyahay waxa ku hoos jiro qodobo badan ay ka mid tahay dalku sababta loo gelinayo xaalad degdeg waa maxay dagaal inuu aad wax ku qasbaa maxay tahay marka qodobkaas inaan ku sii dheeraado ma rabo ujeedka u socdo ma aha hore u sii socono qodobka labaad oo isla maxay ahayd qodobka shanaad faqradiisa b madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida okay isla qodobka shagaashanaad faqradiisa c maxay leedahay madaxweynuhu wuxuu magacaabi karaa taliyaasha ciidamada heer federaal iyo xilka qaadista markii ay soo jeediyaan golaha wasiirada marka halka maxaa kaaga cad madaxweynuhu in uu taliyaasha ciidamada heer federaal maamul goboleed shughul kuma laha waa heer federaal in uu xilka qaadis ku sameey karin magacaabisna uu ku sameey karin ayada oona ka imaanin golaha wasiirada ayaga oo soo jeedin ka imaanin golaha wasiirada ma sameey karo qodobkaas wuu iska cadiyaa okay madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa wasiirka koowaad ee xukuumadda waa ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynuhu wuxuu xilka ka qaadayaa ama kala dirayaa xukuumadda federaalka haddii ay weydo codka kalsoonida shacabka waliba ayadoo loo eegayo cod haldheeri ah halkaana maxaa kaaga cad
madaxweynuhu maalinka uu magacaabo ra'iisul wasaaraha in awooddii dalka dhan ay gacanta u gashay ra'iisul wasaaraha xilka qaadistiisana ay la wareegeen ee mas-uuliyiin ay ka yihiin golaha shacabka ee baarlamaanka ayagaa xilka ka qaadi kara wuxuuna xilka ku waayi karaa cod dheeri xilka qaadis ma samayn karo oo toos asiga ma samayn karo maxaa ku saaray qodobka kale isla qodobka 9aad faqradiisa maxay leedahay madaxweynuhu wuxuu magacaabi karaa wasiiro wuxuu xilka ka qaadi karaa wasiiro ku-xigeen wuxuu xilka ka qaadi karaa wasiiro dowle iyo wasiiro ku-xigeen asiga markuu soo jeediyo wasiirka koowaad ee xukuumadda macnaha madaxweynuhu xilka kama qaadi karo wasiir ku-xigeen ama wasiiro dowle ayada oonu u soo jeedinin wasiirka koowaad ee dalka waa ra'iisul wasaaraha isagoona soo jeedin oona ka haysanin xilka qaadis iyo magacaabis ma sameyn karto waa shaqo ra'iisul wasaare warkaasna wuu idii cadiya ummadda Soomaaliyeed okay isla qodobka 9aad faqradiisa ka maxay leedahay magacaabista jagooyinka sare xukuumadda federaalka iyo madaxda hay-adaha dowladda federaalka wuu magacaabi karaa marka uu soo jeediyo golaha wasiirada qodobkaasna waa haysaan macnaha jagooyinka sarsare iyo hay-adaha dowladda madaxweynuhu ma magacaabi kara asiga oo aana haysanin soo jeedin golaha wasiirada ah qodobkaasna waa iga haysaan waa awoodaha waxay ka mid tahay madaxweynaha okay isla qodobka 9aad faqradiisa maxay leedahay madaxweynuhu wuxuu magacaabaa danjirayaasha iyo qunsuliyadaha guud ee dalka markuu golaha wasiiradu soo jeediyo macnaha golaha wasiirada oo aan soo jeedinin ma magacaabi karo xilka qaadisna ma samayn karo waa shaqo u taalla golaha wasiirada okay marka halkaas waxaa ku noogu dhammaaday awoodihii madaxweynaha waxaa gelaynaa marka awoodaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha waxaa ka hadlayo qodobka 100aad ee dastuurka ku-meel gaarka faqradiisa maxay leedahay ra'iisul wasaaraha waa madaxa xukuumadda federaalka okay isla qodobka 100aad faqradiisa maxay leedahay awoodaha ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada halkaa maxaa ku cad in xilka qaadista iyo magacaabista golaha wasiirada ay u madax bannaan yahay ra'iisul wasaaraha halka qodobkii hore laga dhahay madaxweynuhu wuu ka qaadi karaa laakiin waa in uu soo jeedin ka haystaa wasiirka koowaad ee xukuumadda wasiirka koowaad xukuumaddana waa ra'iisul wasaaraha dadka waa inay saas u fahmaan okay waxaa jirto awood kale awood wadareed ah oo ra'iisul wasaaruhu ay la wadaagaan golaha wasiirada awooddaas maxay tahay qodobka 9aad faqradiisa maxay leedahay magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sarsare ee dowladda waxaa iskale golaha wasiirada uu madaxda u yahay ra'iisul wasaaraha marka halkaas maxaa kaaga cad maalinka ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu magacaabo in dalka awoodiisa min raas caseer ilaa raas kamboni mas-uuliyadda amni iyo mas-uuliyadda guud ay dusha ka saaran tahay ra'iisul wasaaraha inta ra'iisul wasaaraha la magacaabin madaxweynaha ayaa iskale laakiin maalinka la magacaabo ra'iisul wasaaruhu
madaxweynaha waxa u soo haraya bis laba shay inuu yahay madaxweynaha astaanta qaranka inuu yahay maxay ahayd taliyaha guud ciidamada qalabka sida inuu yahay mas-uuliyadahan kala dhan oo soo haray waa mas-uuliye lala wadaago oo keligiis oon go-aan toos oonu gaari karin okay marka ay xaaladda halkaas maraysa haddii aan usoo gudbo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare waxaa mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed min raas caseer ilaa raas kambooni amnigooda adiga ayaa mas-uul ka ah adig ayuuna ku saaran yahay maxaa lagaa rabaa marka maadaama doorashadii dheeraad lagaaga dhigay oo doorashadii lagugu wareejiyey madaxweynihii doorashadii kugu wareejiyey in aad garatid mas-uuliyadda aa leedahay aanay cidna uga heebeysanin adiga oo dastuurka dhinacana walaaxanayn awoodaha dastuurka ku siiyey qaadanaya waxaa ayaan darro ah madaxweynihii wareejiyey xilka mas-uuliyadda ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha inuu doorasho qabto in uu amnigii ka shaqeynayo inuu ku fargeliyo wasiirkii shaqadiisa ay aheeday amniga uu ku carqaladay waa ayaan darro marka waxaa leenahay ra-iisul wasaare noqo qof garanaya mas-uuliyadda saaran waxaa mas-uul ah ka tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa xil kaa saaran in aad doorashada si toos ah u qabatid midda kale hay-adaha amniga ee adiga aana kaa amar qaadin waxaa xaq u leedahay dastuurkana kuu baneeyey in aad xilka qaadis ku samaysid aad magacaawdid saraakiil adiga ku hoos yimaada kadibna aa howsha doorashada iyo ilaalinta xildhibaanada dooran lasoo doortay iyo kuwa aan la dooran bay shacabka soomaaliyeed amnigooda aad sidaa ku sugtid aad ku ilaalisid inta ka dhamaystirmaysa doorashada marka ra-iisul wasaare marka waxaa lagaa doonayaa in aad garatid mas-uuliyadda ku saaran inaad garatid oo aa xaq u leedahay dastuuriyanna aa u leedahay midda kale aa rabo waxay tahay inaan kula wadaago hay-adda niso waa hay-adda ummadda soomaaliyeed soomaalina ay ku faanto hay-addu qalad ma laha askarta ka shaqaysana qalad ma laha cidda qaladka iskale waa saraakiisha magacaaban ee sida guracan loo adeegsanayo taana adiga ayaa xaq u leh in aad xilka ka qaadid aad u magacaawdid saraakiil u adeegaya ummadda soomaaliyeed kana shaqeynaya sidii doorashada si nabadgelyo ah iyo amniga ay ku dhici lahaaday dalkaana uu tiiha iyo iska dawareega ugu bixi lahaa haddii aan usoo noqdo su-aashaydii koowaad ay aheeday yaa waa cidda diidan dalkan inuu doorasho aado wax qarsoon ma aha way iska caddahay dalkan waxa diidan in doorasho aado waa xukuumadda xilkeedii dhammaaday iyo kooxda ay wadato ee la magac baxay nabadii nolol kooxdan waxay ku caanbaxeen carqalado waa aragteen puntland waxay ku sameeyeen puntland waa ay carqaladeeyeen waxay ku sameeyeen inay doorashada ay carqaladeeyaan laakiin waxaa aada ugu mahad celinayaa madaxweyne dani iyo cuqaasha in ay garteen dantoodana ka shaqeeyeen halkaasna ay ka soo baxeen dad xildhibaano ah oo danta shacabkooda iyo deegaankooda u adeega bal fiiri tusaale aa ku siiyo ra-iisul wasaare dhammaan ummadda soomaaliyeedna tusaalaha qeyba ka tihiin axmed madoobe maantay cid ka xigta farmaajo ma leh waa in adeerkii wuxuu ka hor istaagsan yahay maamul dhan waa madaxweynihii jubbaland
gobol dhan ayuu saas ugu haystaa waay u haystaa mis weydiisan su-aashaas ujeed kale ma aha halkaa waxaa ka soo baxaya ciidan maxay ahay halkaa waxaa ka soo baxaya xildhibaano asiga taabacsan wax kale intaas uu sameynaa ma jirto hadafkanu muxuu yahay wax asi taabacsan inay halkaa ka soo baxaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaa raba inay idinla wadaago ninba dadkii asi u xigay waxba u ogoleen taagan aniga xukuumaddii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhigay koox gaar inay leedahay ummad Soomaaliyeed uma adeegayo dad Soomaaliyeedna ma wado ummaddaas ayaa waxaa laga rabaa ra'iisul wasaare inaa ummadda dhaafisid doorashada xur iyo xalaalna qabatid waa koox ku caanbaxday dowladnimadu inay dadka ka xigsadaan aan fahansaneenba dowladnimadu inay tahay is-ogol bulsho isku tagtay in nidaam lagu wada heshiiyey in ay tahay dowladnimadu dad aan fahansaneyn wey ooba dowladnimadii ummadda kale u malay inay ayaga ka xigaan marka ilaahay waxaa ugu baryaynaa ayaga in uu garansiiyo dowladnimadu inay tahay mid shacabka loogu adeego shacabkana wada leeyihiin siyaasad lagu wada heshiisan yahayna ay tahay dowladnimadu taa ayaa ayagana maxay u rajayn inay gartaanna waa filaynaa marka ra'iisul wasaare noqo qof maxay sharciyadiisa garanaya u maleymaayo inaad noqonayso qof sharciyadiisa garan waynaya inaad noqonayso u maleymaayo marka noqo qof sharciyadiisa garanaya hay-adaha amniga hoos yimaadaan hay-adaha ka amar qaadin ku sameeyey xilka qaadis magacaaw dad adiga ku hoos yimaada kana shaqeeya sidii doorashadan si dhaqsa ay ugu dhici lahaday dalkaana uga bixi lahaa tiihan iska daba wareegan iyo rafaadkan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ku leeyahay ra'iisul wasaare hawsh adaga kuu taallo dalkan adaa mas-uul ka ah doorasho u horseed si u dhaqsiyaha badan ummaddan amnigooda iyo mas-uuliyaddooda aday ku saaran tahay ra'iisul wasaare cid kale ay saaran tahay ma jirto adaa ummadda ka mas-uul ah maalinkii lagu magacaabay oo ra'iisul wasaare lagu magacaabay ayay ummaddan mas-uuliyaddooda ku fuushay kana soo wareegtay madaxweynaha sharciyan baa u leedahay xaq baa u leedahay dastuuriyan baa u leedahay marka ha noqon qof garan waayey sharciyadda uu xaq u lahay isku day inaad sharciyadaada garatid waxaa ku leeyahay la shaqeey hay-adaha amniga gaar ahaan wasiirka amniga arrimaha gudaha intan kale oo maxay ahayd isleedahayna way ka maxay ahayd amar diidana awood baa u leedahay inaad xilka ka qaadid u magacaadid cid adig ku hoos timaada marka intaas ayaa maxay ahayd kusoo gabagabeynaya ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay cidda diidan in doorasho ay dhacdo waa kooxdan dalkii iyo dadkii ka xigsanaya dowladnimadu inay ayaga si gaar u leeyihiin kooxdaas baa diidan cid kaloo diidan ma jirto dalkan doorasho u aadaya nasiibkooda ha qaadaan marka waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa waaye Ramadaan Kariim